السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتين قالوا كسر هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا وعصبت سبسكرايب النودة هدا هرنا لجوجتنا لا في شركة كومنت جبوا أنت أسبوع لي ذن فري مايو أنا كنا حسنتين لجوجتان كينا هدي أنا وعصبت هنا سبسكرايب صار بيلكن فروس يا دونا فتى داوده فواد فيديو يا شينا ما تروح هذا دونا إن شاء الله تعالى هرمونال imbalance إن بدن واكسو هدلي هرمونال imbalance أو channel كأيو كجرتا hormonal imbalance marka waxyaabaha u fiican iyo kaniini ahaan hadii laga soo tago foodka ama cuntada ayaan maanta ka hadli doonaa insha Allah taala. Stress ayuu leeyahay, timaha oo ka daadanayo, cayil fara badan, caloosho weynaata, inta badan caloosha see loo jaraayo, inta badan waxa macquul ah qofka inuu maxay hayto calooshii ka jirmi weysay wax kasta uu sameeyay waxaana sabab u ah mararka qaarkood hormonal imbalance-ga aad ayuu saameeyaa stomach-ka ama caloosha ayuu soo buuriyaa, sidoo kale cadiin ayuu garbaha ka saaraya. Waxaad arkaysaa qof oo inta kala caata ka ah ama caloosha ka buuran ama garbaha kale hilib zaa'id ka saaran. Marka haddaysan qoftaasi u dhalanin garbaha inuu hilibka ka koro waxaa macquul ah hore u lahaan jirin hadda yeelatay inuu hormonal imbalance yahay. Marka calaamado fara badan ayuu leeyahay. Marka kaniiniyaal iyo daawo ahaan haddaan kasoo tagno cunto u fiican ayaa jirta hormonal imbalance oo mar walba aad soo iibsan karto. marka waxaa kamid ah waxyaabo every time anaga isticmaalno laakiin si gaar ah ma isticmaalno cuntada ayaa ku darnaa. Avocado kaleeto aad ay ugu fiican tahay hormonal imbalance-ga. Vitamin fara badan ayaa laga helaa, sidoo kale spinach-ka ama koostada oo kale aad ay ugu fiican tahay. Beetraafka kaas gaduudan oo geedka beetiska ayaa la yiraahdaa beetraaf anaga u naqaanaa hadaynu nahay Soomaali. Marka beetraafkaas oo kale aad ayuu ku caawinayaa bocorka siiba mirihiisa aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay. Anaga inta badan bocorka waa isticmaalnaa laakiin miraha waa iska daadinaa. Miraha faa'iido fara badan ayaa ku duugan. Barbarooniga kaleeto sidoo kale yaanyada kaleeto aad ay idan ugu fiican tahay hormonal imbalance-ga. Sidoo kaleeto kalluunka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay waayo kalluunka maskaxda ayuu fresh ka dhigaa. Hormoonkan waxaa inta badan laga soo jeeyaa hormoonada maskaxda ayaa laga soo deeyaa. Marka maskaxdaada hadday buuq ku jirto hormoonkan maxay ahaytood ma saxmaayo. Toonto kaleeto aad ay ugu fiican tahay hormonal imbalance-ga maasha Allah. waxyaabo fara badan oo xaafadaheena ama jikadeena laga helayo ku jiro anaga maxay badanaa ahdaa Soomaalina aan gaar u isticmaalin. Marka qudaarta isticmaala gabdho aad iyo aad ay ugu fiican tahay, waliba koostada oo kale, avocado-da, kalluunka maasha Allah. Bocorka mirihiisa ha iska tuurinina, qalajista shiita maasha Allah. Sharaabkiina ku darsada aad iyo aad ayuu ku caawinayaa insha Allah taala. sidoo kale tan waa inaa iska yareysaa waxyaabaha stresskaada kicinaya. qof kasta wuu yaqaana hadduu isku buuq stress ayaa ku kacaya. Marka iska ilaaliya buuqa. gabdhaha hadaynu nahay waxaa loo baahan yahay inaan si deganaan u noolaano insha Allah taala. nolosheenana aan jawi degan ka dhigano insha Allah taala. aad baa u mahadsantihiin.